السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسولو هذا channel كيني قلة تيوب يا كورس كيني تحناها كويك بوك وحين 10 كنا شناد أكو إيجي دونا working and setting up users and their roles. قابك الله أبورو استعمالياشا أما users كا طبعا كمباني كا وحلايا بينو ليه شقاليا أو تربضان شقالة والبقولي هاي شقال الله وطلق علي. طبعا marka waxaan sameyn doonaa in aynu shaqaale kasta oo kamid ah company-geena aynu u sameeyno username iyo password kaasoo uu shaqada loogu idmaday QuickBook uu ka qaban doono wax kasta oo transaction oo la taxalluqa shaqada uu qabtay. Tusaale ahaan qofka wuxuu yahay xisaabiye awoodiisa waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan accountant ama xisaabiye marka wuxuu awood u yeelan doonaa oo kaliya waxa loo idmaday. Kadib waxaan tagi doonaa company si aan userskii ula tacaamulo. kadib waxaan dalban doonaa users inagu user kan imika isticmaali doonaa aynu ku jirnay waxa weeye waa administrator ama maamulihii guud. marka imika laba qodob halkan naga soo baxay waa setting up users and roles waa abuur useradii iyo awoodoodii. halkan waxa weeye view users isticmaalayaasha ama users ka halkan ka diiwaan gashan ee ka jira systemkeena. marka aan ku dhufano waa laba user waa user loo yaqaan admin oo imika aan ku jirno iyo user yahay Cabdiraxmaan Daahir oo user labaad ah. hadaba si userska aan u maamulno waxa uga bedelno awoodoodan waa san gareyno waxaan tagi doonaa command menu users kadibna set up users and roles ka passwordka ayuu inoo weydiin doonaa. passwordka ayaan gelin doonaa to inoo haban malanaya kadibna waan gelin doonaa. halkan laba daaqad baa kala soo bixi doona user list ay ku jiraan isticmaalayaashii iyo waxa loo yaqaano role list awoodihi. marka qofku tusaale ahaan waad eegaysaa waad akhriyaysaa iminka tusaale ahaan kale account receivable waa maxay waa role loogu talagalay in tusaale ahaan lagula socdo dhaqdhaqaaqa qofka kasta marka lacagta lagu leeyahay waxa loo yaqaano kuwa deynta lagu leeyahay dhammaan activitieska customerska ama macaamiisha lagu socon doona. marka luqada baa ka dhigan kartaa. waxaan ku laaban doonaa user list kadibna waxaan leenahay a new user kadibna userka magaciisa ayaan geli doonaa. userka magaciisa waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan oo kale waxa loo yaqaano Maxamed Ahmed. kadibna passwordkiisa ayaan gelin doonaa waxaan ka dhigi doonaa 1 marlaad baan ku celi doonaa adigu passwordku aad kayn doontaa. halkana waxaa ka dooran doontaa roolka ama awoodda qofkan isticmaalaha loogu talagalay ama shaqaalaha loogu talagalay. mar walba waxa muhiim ah waxay akhrin doontaa description-ka. salaam waxaan leenahay qofkan waa accountant kadibna waxaan leenahay add kadibna halkan waxaa ku yaala wax la yaqaan assign role roolkii loo assign gareeyay. waxaan kaloo ka dhigi doonaa wax la yaqaan finance kadibna waxaan leenahay add. marka dhammaan markaad awoodiyaha ku soo gurtid ama awoodii loogu talagalay haddii aad rabtid inaad ka qaadi awoodda waad dooranaysaa kadibna waxaad dooranaysaa remove kadibna automatic ayuu ka baxaya. intaa markaad soo dhamaystir waxaan leenahay okay. waxyaabaha kale sameyn karna waxaa kamid ah edit. Cabdiraxmaan Daahir oo kale inaan doorano kadibna aan ku sameyno wax la yaqaano edit ama update inaan ku sameyno awoodii inaan ka qaadno passwordka inaan bedelo magaciisa inaan bedelo waxyaabahaas oo dhan waan ku sameyn karnaa. waxyaabaha kale sameyn karta waxaa kamid ah userka inaad maxay aad delete kartid duplicate aad ku sameyn kartid oo aad laba jeer ka dhigi kartid. intaa markaan ku sameyno administratorka imika aan ku jirno waxaan ka bedeli karnaa. tusaale waxaan sameyn karnaa inaan passwordkiisa bedelno waxaan tagaynaa command menu kadibna waxaan leenahay change your password passwordkaaga bedel. passwordka hore ayuu weydiinayaa waxaan leenahay wuxuu ahaa 2 kadibna waxaan ku gelin doonaa passwordka cusub waxaan leenahay waa 1 mar labaad baan ku celin doonaa. waxaa muhiim ah inaad markasta passwordka aad gelinaysid isticmaalayaasha iyo administratorka iyo guud ahaan userska company-gaaga ee QuickBook ka jira inaad adkaysid. halkan waxaa yaala waxa loo yaqaan set up a password reset. waxa weeye haddii aad passwordka ilowdid waxaa jirta su'aalo challenge questions oo su'aal baa ka dooranaysa jawaabta gelinaysa hadhowto haddii aad ilowdid jawaabta baad meesha gelin doontaa kadibna forget baa lagu sameyn doonaa. su'aalahaas way fara badan yihiin waxaa kamid ah tusaale ahaan kale waxaa kamid ah wax loo yaqaano iskuulkaaga hore magaciisa oo kale kamid ah. waxaa kamid ah wax loo yaqaano restaurant in a college yani favorite restaurant oo tusaale kale degmada abtuulada aad degantahay oo kale magaalada degantahay oo kale udalka u jeceshaa oo kale. waxaa kamid ah wax loo yaqaano saaxiibka magaciisa koowaad ama magaciisa labaad oo kale kadibna kan iska dooran doonaa name waxa loo yaqaano waxa loo yaqaano waxa iska dooran doonaa tusaale ahaan dabcan kuwan mid kamid iska dooran doonaa name of your high school iskuulkaagi sare ama dugsigaaga sare magaciisa waxaan leenahay waxa uu ahaa Nugaal. su-aasha markaa waa encryption waxaan leenahay Nugaal secondary school
marka dabcan way xadidan tahay waxaan leenahay nugaal khayaan leenahay kasoo qaad secondary school labaas baan kasoo qaadan doonaa kadib waxaan leenahay okay marka imika waxaan samayn doonaa wuxuu ku leeyahay QuickBook passwords has been changed we recommended you change it again in 90 days man waa security reason 90 days kadib bedel buu ku leeyahay laakiin mar alla markaad baatid bedelan kartaa sida caadiga ah dabcan marka passwordkeeni waa la bedelay automatically waa la bedelay marka waa 10 aad u kooban oo muhiim ah oo aynu ku baranay isticmaalayaasha iyo qaabka loo abuuro iyo qaabka awoodda loo siiyo qaabka loo edit gareeyo ama qaabka loo dhilido sidoo kale waxaan baranay qaabka passwordka lagu bedelo administratorka ama wax loo yaqaano maamulaha guud inta cashirkan ku xigta kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala